بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دين سلامي دمان أصحاب تميل والبقى جوكتان. وعن هالكي كسي أن بقادي دونا بوغي لوغو مقع داري 4000 Essential English. لو بوغ أيان هر أصور دمينا الله أياكم هاتسان. بوغ سدحات أيان كجرنا عتبكي سدحات أيان كبلابي دونا مانتا. beejka weliba waxaan kasii bilaabi doonaa 20aad. beejka 21aad isigana si gooni ayaan u akhri doonaa, balse cutubkiiba ilaahay haddoo idmaa beej ayaan u qaadan doonaa. si lamid ah sheekada iyadana si gooni ayaan u qaadi doonaa, si waqtigii markaas aan u soo yarayno. haddii aanu dhahno halkii cutubba maalinaan ka bixayna, waxaa malaysaa in waqtiga uu nagu dheeraanayo oo ilaa 20 daqiiqo uu markaasi ay nagu gaarayso. qofkana uusan laga yaabaa markaas inuusan fursad u helin, laakiin haddii aan soo gaabino beej aan u akhrin, waxaa laga yaabaa in markaas fursadiina ay ku badato, wixiina aad markaas ka faa'iideysan karto. marka ilaah haddoo idmaa sidaasaan ku wadi doonaa. ilaah haddoo idmaa maalinkiiba waxaan qaadan doonaa 10 erey. marka hore meeshay ka ahayd 20 erey iyo sheekadooda meeshaan ka qaadi jirnay. maalinkiiba waxaan qaadan doonaa allah hadduu raali ka noqdaa 10kaas erey. beejka marka 20aad ayaan ka bilaabi doonaa buugga 3aad ee 4000 Essential English. ereyga ugu horeeya maanta aan baran doonaa waxaa la yiraahdaa waa alley. ereygaas waxa waaye markaasi macnihiisa luuq waay. luuq weliba ka gadaaleeyo gurigaaga ayaa waxaa la yiraahdaa alley. luuqa maro gurigaaga dhabarkiisa ayaa waxaa la yiraahdaa alley la yiraahdaa. kacitaankan ku faahfaahinayna waxaa la yiraahdaa an alley. luuqyaruhu is a narrow route, waa markaasi wado cariiri ah. behind markaasi ka dambaysa houses guryaha or ama building markaasi dhismooyinka. tusaale waxaa la yiri the alley behind my house, wadada yari ee ka dambaysa gurigeyga looks waxay u egtahay markaasi dhirta mid wasaq ah. ereyga labaad oo aan baranayna maanta waxaa waaye axe waa fash. qixitaanka waxaa la yiri an axe fashku is a tool, waxaa waaye waa qalab used loo isticmaalo tukad in lagu jara markaasi wood, alwaaxa lagu jara. alwaax kaliya ma aha, geedaha oo dhan waa markaas ayaa lagu jara. waxaa la yiri markaa tusaalaha she used waxay isticmaashay an axe fash ay isticmaashay tukad say markaas u jartaa some wood, alwaax ama geed for the fire ay dab ay ka dhigataa markaasi. ereyga saddexaad oo aan qaadanayna maanta waxa uu yahay banjo waa gacan. miraha inta badanaa ee markaasi hal laan ku wada dhegan ayaa waxaa la yiraahdaa gacan la yiraahdaa. banjigaas gacanka macnaha gacan moosay noqon kartaa, hal laanay ku wada dhegan yahay, mooskaas waa tira badan yahay, hal laan ku wada dhegan yahay, gacan moosay noqon kartaa, gacan cinabay noqon kartaa. sidaas waa marka miraha inta badanaa ku wada dhegan hal laan ayaa waxaa la yiraahdaa gacan la yiraahdaa. banj waxaa la yiraahdaa is a group of same things, waxaa la yiraahdaa markaasi waa koox isku nooc ah ayaa waxaa la yiraahdaa bunch. tusaale waxaa la yiraahdaa marka she was hungry, iyadu waa ay bahneed, soo sidaa darteed she ate waxay cuntay the entire bunch, gacankii dhammaa of grapes oo markaas cinabka ahaa ayay cuntay. ereyga afaraad markaasi waxa uu yahay chore waxa waaye waa shaqo inta badanaa markaasi dhib ah misna soo noqnoqota qabashadeeda ayaa waxaa la yiraahdaa chore. qixitaanku waxaa leeyahay markaasi a chore shaqada dhibka badan, ama ereyga chore is a job waa shaqo daadkaasoo you have to do ay tahay in aad qabataa, but like you don't like aadan jeclaysan markaasi inaad qabataa. tusaale waxaa la yiri markaasi it is Nike's chore, waa markii kolkii markaasi Nike waaye ee shaqada qaba lahaa to do dishes, markaas shaqada markaasi diisashka ama saxamada markaas qaba lahayd every Thursday, maalin walba oo markaas talaada ah, and Wednesday night iyo habeen walba oo markaasi arbaca. it is Nike's job to do dishes every Thursday and Wednesday night. Nike shaqadeedu waa liiri markaasi inay qabataa saxamada habeenka markaasi talaadada iyo markaasi arbacada ah. ereyga xiga waxa waaye decent, waa hufan ama muxtarim ah ayaa waxaa la yiraahdaa decent. muxtarim ama hufan ayaa waxaa la yiraahdaa decent.
markaas qeexitaanku waxa leeyahay when something markii shay is uu yahay decent mid muxtarim ah ama hufan oo markaas wanaagsan it shaygaas is okay waa mid fiican or ama good enough markaas sidii la rabay ah tusaalaha waxaa la yidhi Eric ninka la yidhaahdo dib wuxuu sameeyey a decent job shaqo hufan ayuu sameeyey ama shaqo wanaagsan oo ah markaasi painting inuu rinjiyo defense darbigii inuu rinjiyo ama boodkii inuu rinjiyo ayuu qabtay erayga xiga waxa waaye disgrace waxa waaye sharaf dhac disgrace waa sharaf dhac disgrace waxa leeyahay sharaf dhac is a feeling waa inaad dareentaa of shame ceeb inaad dareentaa ama yaxyax inaad dareentaa waxa la yiraahdaa disgrace qeexitaanku waxa leeyahay tusaale waxa la yiraahdaa he felt wuxuu dareemay a sense of disgrace markaas sharaf dareen sharaf dhaceed ayuu dareemay after kadib failing markuu ku dhacay his big exam imtixaanka weynaa markuu ku dhacay imtixaanka finalka oo kale la jeedaa imtixaan monthly exams ama ama test exam ma aha big exams imtixaanka weynaa oo qofku ku gudbi lahaa markuu dhacay kadib ayuu waxa uu dareemay liir markaas sharaf dhac erayga xiga waxa waa elbow waa suxulka waa elbow waa meesha uu naqaano suxulka gacanta meesha laga laabo laabatada gacanta oo markaasi inta yaroo soo kuusan ayaa waxa la yiraahdaa elbow the elbow waxa la yiraahdaa suxulka is the middle part waa qaybta dhexe of the person's arm ee gacanta qofka that taasoo lets you bend it aad qaloocinaysaa tusaalaha marka waxaa leeyahay she wanted waxay tilmaamtay to her elbow xusulkeeda to show me say it tusta where halka she hurt herself ay iska dhaawacday ama dhib iska gaarsiisay erayga xiga waxa waaye waa grateful waa mahadnaq waaye eray kale oo la mid ahaa jiro isagana thankful iyo grateful ay kaliya labada waa mahadnaq labada mahadnaq waxa ay kala yihiin grateful kan waa macnihiisu waxa waaye in markaasi aad ka mahad celinayso in markaasi shaygaas uu dhaco ayaad ka mahad celinaysaa tusaale inaad lacag heshay inaad lagu dalacsiiyey waxaasoo kale ayaad ka mahad celinaysaa tusaale inuu dhacaad ku faraxsan tahay waa thankful iyadoo waxa waaye waxaad ka mahad celinaysaa shaygaas in uusan dhicin ayaad ka mahad celinaysaa marka thankful aad isticmaalaysid waa inaad ka mahad celinaysaa in markaas shaygaas uusan dhicin aad ku faraxsan tahay tusaale waxaad ku sigatay shil inaad gasho mahad celintaas aad sameynayso waxa waaye waa thankful tusaale hadii kale waxba laga xaday shaygiya dib lagugu soo celiyay ama tusaale waa riyaad gashay riyadii waxaad ku riyootay waxyaabo qaab daran markaas soo toostay waxaad aragtay adigoo caafimaad qaba oo wixii aysan dhicin grateful waaye sidoo kale madaxa tahay madax hadii aad ahayd waxa la isku dayay in markaas lagu dhaafiyo kursigii macnaha waa lagu dhaafi waayay maysan dhicin sheegi markaad ka mahad celinaysid thankful aad isticmaalaysaa waxaad ku faraxsan tahay sheegi inuusan dhicin marka grateful iyo thankful sidaas kala tahay grateful waa marka aad adeegsanaysid in sheegani oo dhacay aad ku faraxsan tahay thankful waxa waaye waxaad ku faraxsan tahay in sheegaas uusan dhicin sidaas kale marka qeexitaanka grateful adaa u godobno waxa la yiraahdaa when markii you are grateful aad ku faraxsan tahay for something shay macnaheedu waxa waaye you are happy waxaad ku faraxsan tahay that shaygaasi it happened inuu dhacay markaasi that in markaasi it shaygaasi happened uu dhacay tusaale waxa leeyahay markaasi the girls gabdhihii were grateful way ka mahad celiyeen to have a chance inay fursad u helaan to spend inay markaasi waqti ku qaataan to spend time inay waqti ku qaataan with their grandfather awood inay waqti la qaataan inay ku faraxsan yihiin ay ka mahad celiyeen markaasi erayga xig waxa waa irritate waa ka xanaajin ama ka careysiin ay waxa la yiraahdaa irritate qeexitaanku waxa leeyahay to irritate markaasi to irritate xanaajinta means waxa waaye to annoy inaad ka xanaajisaa someone qof tusaalaha waxa leeyahay markaasi she was irritated way xanaaqday when markii heer badaa walaalkeed told her oo u sheegay that in markaasi he had lost her camera in cameradeedu uu lumiyay markuu u sheegay way xanaaqdaa liire erayga ugu dambeeya 10 eray oo aan maanta qaadaynayna waxa uu yahay waa kid waa ku ciyaarid waay ama markaasi la kaftamid ayaa waxa la yiraahdaa kid marna way noqotaa caruur way noqotaa laakiin halkan waxay ugu jirtaa verb ahaan ugu jirtaa waa sifo ahaan ugu jirtaa
kid marka waxa leeyahay to kid is to make waa inaad samaysaa joke kaftan to aad ku samaysaa markaas to make aadna ku samaysaa someone qof believe aaminsan markaas something shayga which is not true in uusan sax ahayn tusaalaha waxaa leeyahay markaasi I'm not a real man aniga markaasi kama xumi ama markaasi kama murugeysni ama waalni oo kale waaye I was kidding waa un kaftamaye when I said marka aan ku dhahayay I was angry waan xanaaqsanaa marka aan ku lahay aniga ma waalniyo ma xanaaqsaneeno waa un kula kaftamaye un waaye intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cashirkeenii maanta kulanto dambe oo xiiso leh iyo markaasi 10 eray oo xiga oo markaasi oo cutubka markaasi saddexaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.